Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan bilaabaynaa cashirkeenii saddexaad. Waxaan soo qaadanay computerka. Wuxuu u qaybsamay ayaan soo qaadanay, laba qayb ayaan u qaybinay, software and hardware. Marka maanta waxaan qaadanaynaa hardware-kii ayaan qaadanaynaa. Hardware-kii ayaan wax ka taataabanaynaa insha Allah. Hardware-ka waxaa ka mid ah monitorka ayaa ka mid ah ayaan dhahnay. Marka monitorka waa screen-ka marka picture asoo ah maaragtay ayaan idin tusinaa sawirro ayagoo ah maaragtay computerka gudihiisa partiskiisa oo dhan maaragtay computerka partiskiisa gudaha ku jiro oo dhan ayaan maaragtay waxaan u arkaynaa sawir ahaan. Marka kan waa monitorka marka case system case-ka uu ku xirmayaa maaragtay waa meeshii muuqaalkii aad ka arki kartay waa output ayaan dhahnay maaragtay monitorka. Marka kan waa monitorka kan waa keyboardkii oo maaragtay waxaa ku qoranaysa waa input devices saan hor u sheegnay. Monitorka waa output devices ayaan dhahnay oo waxbaa laga arki karaa oo maaragtay waxbuu ku soo saarayaa. Laakiin keyboardka waa input devices maaragtay information baad gelinaysaa waxbaa ku qoraysaa. Mouse-kii waa kan asagana waa click ayaa ku siinaysaa asagana input devices ayuu noqonayaa. Marka mouse-kii oo muuqaal ahaan ah monitorkii oo muuqaal ahaan ah maaragtay oo sawir ahaan ah oo maaragtay aad arki kartid. Keyboardkii waa kana asagana waa arki kartaa. Kan waa CD drive waa CD room-kii waa meesha CD-ga uu galayo ama DVD-ga uu galayo waaye. Asagana maaragtay gudaha ayuu ku jiraa oo gudaha ayuu ku jiraa hadda meeshaas ayuu galayaa. Maaragtay CD room-kii meesha maaragtay CD-ga aad gashanaysay oo maaragtay aad maaragtay data-daadii iyo waxa aad maaragtay ku save garaysan lahayd ama DVD hadduu yahay muuqaaladii iyo maaragtay quraan haddaad maaragtay inaad ku duubata aad rabto oo kale iyo meesha uu galayo waa halkan. Floppy disk-ga waxaa waaye old maaragtay storage maaragtay meel wax lagu shubo sida CD-ga oo kale u ahaa oo maaragtay waagi hore la isticmaali jiray. Waa cajalad yar camal oo saas loo gelinayo ayuu ahaa laakiin hadda lama isticmaalo oo hadda maaragtay hadda DVD-ga iyo CD-ga iyo la isticmaalaa iyo USB-ga iyo ayaa la isticmaalaa. Kan waa hard drive-kii. Hard drive-ka waa storage waxaa waa asagana waa muhiim. Hard drive-ka wuxuu galayaa gudaha ayuu ku jiraa waa data-da meesha ay ku jirto data-da oo maaragtay computerka oo dhan meesha ay ku jirtay waaye. Haddii computerka hard drive uusan lahayn that means computerka ma soo kacayo oo maaragtay wuxuu ku leeyahay ma heli karo maaragtay device-kii aan maaragtay aan information-kii ku jiray aan maaragtay ka soo kici lahaa ma helayo. Wuxuu leeyahay marka computerka ma shaqeynayo waxba ma arkaysidba. Marka waa muhiim asaga marka waxaa waaye waxaa lagu xisaabtamaa storage-ka waxaa lagu xisaabtamaa maaragtay intuu qaadaya maaragtay how many gigabyte ayuu qaadayaa ayaa lagu xisaabtamaa. Marka computer aad soo gadanayso oo kale computerku maaragtay ka qaad weyn yahay hard drive-kiisa uu ka qaalisan yahay. Waxyaabaha lagu hadda dukaan aad tagto oo kale computer aad soo gadato aad rabtid oo kale waxyaabaha ugu muhiimsan oo maaragtay oo laga gadaayo waxaa kow ah hard drive-ka. Hard drive-ka hadduu yar yahay computerka lacagtiisa waa yar yahay. Hadduu qaali yahay maaragtay computerka iyo sidoo kale CPU-gii iyo RAM-kii oo kale ayagana waa qayb weyn ay ka qaataan marka computerkii aad soo gadanaysid. Waa muhiim. Kaas waa storage-kii maaragtay file-shii meeshii aad gashan lahayd waxaaga meeshii maaragtay system files-ka oo dhan meeshii ku jireen waaye. Marka storage maaragtay hard drive-kana kaas saas ayaan maaragtay ayaan u sharaxnay. Kan waa CPU-gii waa maskaxda computerka waa processor-na waa la dhahaa CPU-na waa la dhahaa central unit processor-na waa la dhahaa. Waa muhiim waa maskaxda computerka oo dhan waaye. meeshii maaragtay speed-ka asna lagu xisaabtamaa maaragtay nooca uu yahay 64 miyaad 32 bit miyaad 64 bit miyaad ayaa lagu xisaabtamaa. Marka asna waa door muhiim ayuu ka qaataa. laba maaragtay shirkado waaweyn ayaa maaragtay soo saarto maaragtay Intel iyo maaragtay AMD ayaa maaragtay ayaa soo saarto. Waa muhiim door muhiim ayuu computer ka qaataa halkaas ayuu galayaa. motherboard-ka gudihiisa motherboard-ka waa kana waa hooyadii computer-ka waaye meeshii ay maaragtay qalabkan oo dhan ay geli lahaayeen waaye. motherboard-ka ayaa la yiraahdaa halkaas ayuu galayaa maaragtay CPU-ga ama processor-ka
meeshaas cadda ah ayuu saas u galaya click ayaa lagu siinayaa fiilyar oo dhag lagu siinayo ayuu wataa ay leedahay maaragtay meeshaas dhag ayaad ku siinaysaa marka waa muhiim CPU-ga door muhiim ayuu ka qaataa RAM-ka sidoo kale RAM-ka waxa waaye application markaa kiciso oo meesha lagu haayo waaye RAM-ka application hadda aan kiciyo kale kan hadda aan presentation aan ku sameynayo kale intuu usaan u yahay maaragtay aan u jeedno meesha lagu hayo waa RAM-ka waaye RAM-ka iyo maaragtay processor-ka way isla shaqeeyaan oo maaragtay waxa temporary inta lagu haya si ku meel gaar ah ayaa data loogu haya kadib wuxuu u gudbinayaa maaragtay processorkii maaragtay uu process gareynaya maaragtay shaqadii ayuu kadib ayaa lagu soo saaraya maskaxdii oo kale oo u gudbinaya uu ka qaadanaya data temporary inta lagu haya si ku meel gaar inta lagu haya markuu u gudbinaya processorka markuu u gudbiyo kadib processka ayuu sameynaya shaqada kadib ayaa muuqaalkii aad arkaysaa wixii lagu soo saaraya marka way isla shaqeeyaan RAM-kana waa muhiim asaga naftigiisa marka computer soo gadanayso kale asaga iyo CPU-ga iyo maaragtay hard drive saddexdana ugu muhiimsan oo maaragtay hadda dukaan hadda tagto kale fiiri uu ku qoran yahay RAM-ka waxay ku leeyihiin intaas oo gigabyte waaye maaragtay capacity-giisa iyo maaragtay speed-kiisa damar uu speed-kiisa uu maaragtay uu ka badan yahay damar uu ka qaalisan yahay hadduu kan uu maaragtay speedkiisa uu maaragtay ka speed badan yahay midka kale uu ka qaalisan yahay marka CPU-ga iyo hard drive-ka iyo RAM-ka saddexdaas ayaa maaragtay ayaa lagu xisaabtamaa computer-ka marka soo gadanaysid wayna ku qoran yihiin computerada markay meesha yaalin oo kale fiiri hoos ay ugu qoran yihiin sticker ayaa ku dhagan oo ay ku leeyihiin memory-giisa waa intaas maaragtay hard drive-kiisa waa intaas oo gigabyte maaragtay marka waa muhiim waxaa kaloo ku soo haray speaker-ka waa kan asna waa codkii meesha aad maaragtay ka maqlaysay waa muhiim asagana speaker-radii waaye oo computer-kii galayeen marka haddaan usoo noqono motherboard-ka halkaas ayuu seexanaya halkaas ayuu jiifanaya hadda computer-kii furan waaye halkaas ayuu galayaa motherboard-ka boloshaas ayaa lagu xirayaa fiilooyinkan oo dhan motherboard-ka ayay galayaan motherboard-ka door muhiim ah ayuu ka qaataa computer-ka door aad u muhiimsan ayuu ka qaataa marka halkaas ayuu seexanayaa all waxaan oo dhan maaragtay way ku xirmayaan motherboard-ka waa hooyadii maaragtay computer-ka waaye marka waa muhiim waa very maaragtay muhiim hadda CPU-ga halkaas ayuu galayaa nahnay RAM-ka halkaas ayuu galayaa asagana RAM-ka maaragtay hadda saddex qayb ayuu leeyahay motherboard-ka uu kusii dhowr xabo ayuu sii yeelan karaa hadda saddex xabo ayuu leeyahay marka hadda hal xabo ayaan gelin hal xabo ma speedkiisa uu yar yahay kala 1 gigabyte ay haysatid oo RAM mid kale ayaa soo gadan kartaa waa geli kartaa si computer-ka speedkiisa uu maaragtay fast kugu noqdo oo maaragtay si degdeg ah maaragtay datadii ay kugu soo saarto maaragtay marka waa very important waa muhiim RAM-ka halkaas ayuu galayaa speaker-kiina maaragtay gadaal ayuu ka galaa waa arki doonaa insha Allah meesha speaker-ka uu galaayo kan waa maaragtay network card-ka waa network meesha internet-ka computer-ka fiilada internet-ka ay galayso waaye halkaas ayuu galayaa fiilada internet-ka halkaas ayay galaysaa RJ45-ka waa arki doonaa ayadana marka internet-ka meesha ku xirma aad ka helaysid waaye hadda maaragtay website inaad gashid internet inaad isticmaashid aad rabtid waa very important waa muhiim waa cable-kan waa maaragtay network card-ka computer-ka waa maaragtay ayuu leeyahay meeshaas ayaa la geliyaa waxaa ku soo haray power supply waa meeshii computer-ka uu ka helayay dabka waxaa lahaa power supply ayaa la yiraahdaa halkaas ayuu galayaa fiilada maaragtay power-ka ku siinaysay darbiga ayay galaysaa oo korontada kadib halkaas ayay galaysaa waa kana halkaas uu ku jira hadda power supply waa muhiim isaga naftigiisa okay RAM-ka usoo noqono RAM-ka haddii uusan shaqaynaynin oo kale computer-ka beep ayuu bixinayaa beep ayuu leeyahay waa maaragtay ciladaas ayaa lagu gartaa marka waa muhiim motherboard-kii maaragtay waxaan oo dhan motherboard fiilooyinkan oo dhan power-ka kale halka waxay galayaan maaragtay motherboard-ka ayay galayaan marka waa muhiim maaragtay marka maanta insha Allah waxaan maaragtay aan sameynaynaa presentation ku saabsan computer-kii oo la furfuray oo maaragtay hal one by one ayaan maaragtay hal ayaan maaragtay aan u sharaxnay marka waxaan maaragtay idin dhihi lahaa oo kale waa inaad maaragtay computer soo qaadatid oo iska maaragtay aan shaqaynin furfur
xirxir network cardka meeshuu ku jiro power supply-ga meeshuu ku jiro fiilada meeshii galaysay monitorka meeshuu galayay mouse-ka meeshuu galayay hard drive-ka ma aragtay inaad ma aragtay aan meesha u galayo kale aad furfurto practice ku sameyso furfur xirxir ma aragtay saas ayaa lagu bartaa computerka mid iska halaabay ayaa la iska soo qaataa waa la furfuraa waa la xirxiraa motherboard muxuu yahay RAM muxuu yahay ma aragtay CPU processor muxuu yahay ma aragtay RAM-ka magac kale ayuu leeyahay ma aragtay physical memory waa la memory card waa la marka waa muhiim furfur xirxir CD-ga meeshuu ku jiro CD-ROM-kii waxaasoo dhan ku practice garay baro waa very easy waaye aad ayuu u fudud yahay computerka ma adka furfur xirxir ma aragtay insha Allah markaas waa la qabsan doontaa hadduu ilaahay yiraahdo halkan waxa waa computerkii oo la xiray fiilooyinka xaggii galayaan motherboardki waa soo aragnay RAM-ki waa soo aragnay CPU-gi waa soo aragnay computerka marka computerka la xirxiro xaggee keeblada galaan keebladan maxaa la yiraahdaa magaceedee loo maaragtay aan ugu wici karnaa hadda kan oo kale waxa la VGA cable ayaa la yiraahdaa VGA meeshaas blue ga maaragtay colorka waa qayb weyn ayuu ka qaataa maaragtay meeshaas ayuu galaa halkaas ayuu galaa VGA card ayaa la yiraahdaa kan halkaas ayuu galayaa fiiladan waa fiilada muuqaalka ku tusinaysay halkaasna waxay ka galaysaa monitorkii ayaa halkaas ka galaysaa screenkii ayaa halkaas ka galaysaa hoos waa arkaysaa asna waa blue waa arkaysaa blue waaye kuwan waa USB ports waaye waa USB keyboardkii iyo mouse-kii iyo hadda keyboardkan waa waagi hore PS2 ay isticmaali jireen hadda waxaas waa old version ah waa laga gudbay hadda waxaa la isticmaalaa USB ay isticmaalaan inta badan marka USB halkaas ay gelinaysaa kan USB waa kan waa RJ45 ayaa la yiraahdaa filadan RJ4 R45 R Soomaali ahaan hadda idinku sheego R45 ayaa la yiraahdaa RJ45 ayaa la yiraahdaa marka waa filada internetka ku siinaysay waaye marka halkaas ayay gashaa kadib waxay galaysaa modemkii ama switch hadkan switch waaye modem normal switchka iyo maaragtay ruutaha way isku dhex jiraan hadda kan switch kaliya waa marka tusaale ahaan halkaas ay gelinaysaa kadib wallka darbiga ayuu sii galayaa internetka meesha qolada service provider-ka ay siiso guri walba service provider ayaa ku BT oo kale anaga saasaan isticmaalaa TalkTalk oo kale ayaa ku siinayso marka wallkaas ay wall jack ayaa halkaas ayaa gelinaysaa kana ayaad gelinaysaa halkaas marka RJ45ka fiilada RJ4 halkaas ayay galaysaa halkaasna waa galaysaa marka RJ45 ayaa la yiraahdaa kan waa fiilada powerka oo maaragtay oo galaysay maaragtay routerkaaga ama switchka galaysa kana waa power supply-ga aan ka soo sheekeynay waa kana dabadiisa dambe kan ayaa galaya kadib fiilada powerka siinaysa waa maaragtay power cable-ka waa halkaas ayuu galayaa waxaan kaloo oo maaragtay aan rabaa inaan sheego kan waxaa la yiraahdaa parallel ports ayaa la yiraahdaa hadda lama isticmaalo mar aad qofkii maaragtay haysto printerka ayaa loo isticmaalaa printerada hadda laakiin normally printerada waxay ku yimaadaan USB cable oo kan oo kale ayuu printerkii ayuu wataa halkaas ayaa gelinaysaa inta badan USB cable-ka ayaa la isticmaalaa marka waa portiyadii iyo maaragtay cabladii maaragtay loo isticmaalaa kana waa speakerkii codka maaragtay halkaas ayuu galayaa codkii meesha aad ka maqlaysay halkaas ay colorka ayaa maaragtay ku qeexaya meesha maaragtay marka computerka soo qaado furfur xirxir maaragtay hadda guriga hadduu computer ku yaalo fiiri portiyada meel gala kan waa barat hadda RJ45 ayaa la yiraahdaa kan USB ayaa la yiraahdaa kan waxaa la VGA ayaa la yiraahdaa maaragtay screenka muuqaalkii ku tusinayo waaye marka waa very easy ma adka computerka ma adka kadib insha Allah hadda waxaan baranayaa hardware-kii maaragtay computer si loo furfuro iyo maaragtay gudihiisa waxa ku jiray cable-ladii iyo wixii dhan ayaa hadda ayaan baranay insha Allah next time gudiha ayaan software-ka ayaan isticmaali doonaa insha Allah maaragtay hadduu Ilaah yiraahdo marka cashirkeena maanta intaas ayaan kusoo koobaynaa hadduu Ilaah yiraahdo waana mahadsantihiin dhammaantiin insha Allah inta maaragtay channelkii ku xiran assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته